السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل عشر كينو كساب سنة research methodology قراهان قيمة statistics اللي حريرتو sampling method كا عشر دي هروح عن كجوسو هذا اللي فرق وده حي population إيه sample عشر كانوا حن كهذا دونا وحوي هاي simple random sampling. The term random has a very precise meaning. Each individual in the population of interest has an equal likelihood of selection. ereyga random waxa uu leeyahay macno qeexan marka laga hadlayo samplingka waxaana loo jeedaa qof kasta oo kamid ah populationka ama waxa in daraasada laga sameeyo la xiiseenayo in baarista lagu sameeyo waxa ay leeyihiin fursado isku mid ah oo lagu dooran karo. Simple random sampling is a sampling technique where we select a group of subjects from a large group of population. You randomly pick subjects from the whole population. waxaa la yidhi marka random samplingka waa hab farsameed lagu doorto qeybo ka mid ah waxa lagu sameynayo daraasadda maadaama aan la wada qaadan karin qeybo ka mid ah ayaa laga dooranaya marka markiiba hal xaba ayaad soo qabsanaysaa adiga oo kasoo qaadanayo guud ahaan populationka. marka haddii aan ka bixino tusaale guud maxaa loola jeedaa simple random samplingka waxa waaye waa qofka markii la rabo in daraasada la sameeyo suurtagal ma ahan in dhammaan dadkii oo dhan lagu sameeyo surveyga waxaa loo baahan yahay in qeybo kamida la doorto haddaba marka qeybahaas la dooranayo waxaa loo dooranayaa waxa loo yaqaano simple random sampling oo ah in guud ahaan populationka laga doorto si aan kala sooc lahayn waxaa la raba in daraasada lagu sameeyo qeybaha kale ayaan haddana si guud ugu sii hadli doonaa. Simple random sampling bullet from the entire population with no constraints placed on how sample is bullet. Every subject in the population has an equal chance of being selected. marka la raba marka in la sameeyo random samplingka waxaa la sameynaa waxaa laga soo qaadanayaa qeyb ka mid ah guud ahaan waxaa raba daraasada lagu sameeyo iyadoo aysan jirin wax caqabad ama wax kala saarsaara ama wax oo kala bixin ah waxaa raba in cilmi baarista lagu sameeyo. Every subject in the population has an equal chance of being selected. mid kasta oo kamid ah waxaa raba in daraasada laga sameeyo ama surveyga lagu sameeyo wuxuu haystaa fursado isku mid ah oo iyadoo aanan loo kala sooceynin ama loo kala aabiyeelin. Simple random sampling is the most appropriate when the entire population from which the sample is taken is homogeneous. waxa uu ku fiican yahay random samplingka ama in loo adeegsado ay ku fiican tahay uu ku habboon yahay marka guud ahaan waxa la raba in daraasada laga sameeyo ay yihiin wax isku mid ah oo aan kala duwaneyn. marka homogeneous waa wax marka ay yihiin equal ama same. marka haddii wax isku mid ay yihiin oo aan difference u dhaxaynin waxaa fiican in isticmaalo random sampling mana loo baahna in la sameeyo criteria lagu kala dooranayo laakiin waa inuu ahaadaa equal chance. There are many methods to proceed with a simple random sampling. The most primitive and mechanical would be the lottery method. Each member of the population is assigned a unique number. Each number is placed in a bowl or a hat and mixed carefully. waxaa jira habab badan oo lagu sameyn karo qaabkan simple random samplingka laakiin habka ugu muhiimsan ee farsamada ugu fiican waxa uu noqon karaa qaabka lotteryga oo qaabka hadda dowladda Mareykanka dadka ay ku qaadato taasoo macnaheedu qof kasta oo kamid ah dadka la rabo ama waxa daraasada lagu sameeyo waxaa la siinaa number gaar ah. numberada gaarka ahaa ee la siiyay dadka daraasada lagu sameynayo populationka ayaa waxaa lagu ridaa marka baaquli ama koofi waa la isku qasaa kadibna si aan kala sooc lahayn ayaa number mar loo qabsanaa numberada ka soo baxo ayaa waxaa lagu sameynaa daraasada ka qayb qaadanayo. sida ka muuqata sawirada hortiina yaalo waa nambaro 1 ilaa 12 so 1 ilaa 12 baaquli ama koofi lagu ridaa inta lagu qoro xanshooyin waa la isku qasaa marba 4 number la soo qabanaa. so hadda marka aan fiirino waxaa la soo qabtay 4 number nasiib wanaag waxaa nasiib u yeeshay numberka 2 numberka 5 8 iyo 10. sidoo kale dadka meesha ku sawiran dhinaca midig
haddii ayagana oo nambaro ayaa la siinaa nambarada marka la siiya marka qof kastana nambarka la siiyay ayaa loo sheegaa nambarka lasoo qabto marka qofka hore loo siiyey ayaa ka qayb qaadanaya daraasada qaabkaas ayay noqon kartaa. For example, the total workforce in an organization is 300. To conduct a survey, a sample group of 30 employees is selected to do the survey. In this case, the researcher can create a simple random sampling using a lottery method. Each member of the population is assigned a number. Each of the 300 employees will be assigned a number between 1 and 300. After which 30 of those numbers would be chosen at a random. waxaa loola jeedaa tusaale ahaan guud ahaan hay-adda ayaa waxaa u shaqeeyaa 300 oo qofood waxaa la doonaya in lagu sameeyo survey waxaa laga dooranaa qayb ka mid a dadkaas oo 300 ah oo 30 qofood ah si loogu sameeyo survey. habkaani marka cilmi baaraha wuxuu abuuraa qaabka loo yaqaano random sampling weliba nooca lottery-ga ah. qof kasta oo ka mid a dadka la rabo in daraasada lagu sameeyo waxaa la siinaa number oo 300 oo qofood ah. nambarada waxay dhexeynayaan 1 ilaa 300. 30 ka mid ah marka ayaa laga dooranaa 300 oo number. koofi ayaa lagu shubaa baaquli then number mid la soo qaada marka 30 ilaa 30 number la qaado 30 kaas ayaa waxay noqonaysaa randomly select. However, choosing a random sample is not as simple as just picking 100 people from 10,000 people. You have to be sure that your random sample is a truly random. أنا ما إسكافودا إن طبعاً كنا قفضات بقال قفض كسر أحد بحثته لكن وحاميين إن أسير السحبة أضو استعماله random sampling كا. وحيانا على أقوال مكة. No need to divide the population into sub-population or taking any other additional steps before selecting members of the population at random. markaas isticmaasha simple random sampling lama ogola waxyaabaha daraasada lagu sameeynaa in la sii kala qaaqaabiyo ama ay jiraan waxyaabo wax lagu kala doortay marka la dooranayo waa inay ahaadaan si isku mid ah iyadoo aanan loo kala aabayeelin aan la kala soocin haddii uu kala sooc dhaco loo random la sameynaa qalad waay. waxaa muhiim ah meesha lagu sheegaa no need to divide the population. okay maxaa dhici kara marka waxaa jira wax la yidhahdo sampling error oo ka dhaca marka la isticmaalayo simple random sampling. And sampling error can occur when a simple random sample is the sample does not end up accurately reflecting the population it is supposed to represent. waxaa marka wuxuu dhici karaa haddii si sax ah aan loo qaadanin dad matalayo guud ahaan shacabka ama waxa la rabo in wax daraasada lagu sameeyo. For example, in our simple random sampling of 30 employees, it would be possible to draw 30 mean even if the population consisted of 150 women and 150 men. tusaalehani hadda aan soo qaadanay 300 oo qofood laga doonayo 30. waxaa suurtagal ah marka in marka koofida ama baaquliga lagu shubayo nambarada la soo qabanayo 30 qofood oo raga in la soo qaato inkastoo ay 150 rag ahayd 150 dumar ahayd laakiin waxaa suurtagal ah in 150 30 ka mid la soo qaato laakiin nasiibna 30 ka mid rag noqdaan. haddii taas oo kale dhacdo waxay noqonaysaa wax loo yaqaano sampling error. For this reason, a simple random sample is more commonly used when the researcher knows little about the population. If the researcher knew more, it would be better to use a different sampling technique, such as stratified random sampling, which helps to count for the difference within the population, such as age, race, and gender. maadaama ay dhici karto wax loo yaqaano sample error si sababtaas looga badbaado waxaa la yidhi random samplingku siisa wuxuu ku habboon yahay in loo adeegsadaan dadka aanan ama researcherka aan aqoon u lahayn populationku uu wax ka sameyn hadduusan aqoon badan u lahayn ay wax isugu mid yihiin ha u qaata random sample maxaa yeelay ma kala yaqaano qaab u kala duwan yihiin. haddiise qofka researcherka uu wax ka yaqaano populationku uu wax ka qoraayo ama wax ka sameynayo surveyga ha isticmaalo qaabka loo yaqaano stratified random sampling
kaasna insha allah casharada baan dib aan casharka videoga soo xiga ayaan uga hadli doonaa wuxuu ka caawinaa marka stratified random sampling-ka in populationka loo kala saaro sida age-ka, race-ka iyo gender-ka, da-da ay jiraan, diinta ay haystaan iyo rag iyo dumar wax ay yihiin. waxaan filayaa inaan fahnay casharkii ku saabsanaa simple random sampling oo anigoo ah Dr. Shafie Sharif Mohamed. tan iyo casharkeena kale intaan dib ugu kulmi doono. hada wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.